Asalaamu calaykum. Isku soo noqod wanaagsan. Waa qaybtii labaad ee buuggii magaalada jacaylka. Intaanan muuqaalkan u gelin waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe saartid muuqaalkanna aad like garaysid. Mahadsanid. Fariin kooban oo ku socotaa xertii sababta u ahaa kala taggeena. Idinku waxaad u maleynaysaan in dabka jacaylku uu damay. Halkaad keliya kor ugu sii shideen xaabo kale. Haddaba jacaylku waa dabka marka qofku isku dayo inuu damiyo. Wuxuu noqdaa mid sii kululaanaya oo shidma. Kaala aynu istusno ama aynu mala awaalno 40 sano kadib aniga. Markaan ku dhawaado inaan noqdo 60 jir, misna aan ku sugnahay sariir ahayd inay ahaato sariirtaada oo aan madaxayga ku ururinayo urtii da'da. Misna aan eegayo derbiga oo ku dhajisan yahay sawirka aroos muruga leh. Kaasoo ah sawirka wiil dhalinyaraha oo aad aniga ii eg. Una taagan sidii inuu aas joogo oo kale oo gacantiisa bidix ku haya gal ubaxa jaban. Wejigiisana ka muujinaya dhoola caddayn qabow. Misna gacantiisa midig ku haya faraha haweeney aan adiga ahayn. Markaan eego waan ku xanuunsadaa eegidda sawirkaas. Waxaan isku qabtaa indhahayga. Waxaan qaataa neef qoto dheer kadibna gacantayda ayaan kor u qaadaa si aan u tirtiro ilmada ku soo dhacaysa wejigayga qalalan. Waxaan u kacay salaada istisqaa, salaadii tala saarashada, iyadoo ayna dhicin dhoola caddayntaadii weli aanad sii tegin. Dhinaca midig ayaan eegay. Waxaan ku arkaa adiga oo caloosha u jiifa oo wejigaaga ku taageeray gacmahaaga, iguna eegaya indhahaaga qalqaalnimadu ka muuqato, misna dhaqaajinaya dibnahaaga oo aan cod lahayn, iguna leh waan ku jeclahay. Markaan isku dayo inaan farahaaga qabtana waad baaba'daa oo waan ku waayaa. Ragga xiriirada badan leh waa ragga maalin u waayay haweeney ay jeclaayeen. Gabar kasta oo ay la kulmeen ka raadinaya naxariistii ku dhex jirtay jacaylkiisa. Waxaana adag in gabar kale uu raalli ka noqdo wax kasta oo dhacba. Sidaas darteed waxaa doqon ah gabadha jacaylka raadinaysa ninka waayay gabadhii uu jeclaa. Mararka qaarkood ninka xiriirka badan lahi waa nin aan helin haweeneydii uu raadinayay. Marka uu helo gabadha, isaga si kiskiis ah u joojin doona raadinta iyo dabagalida dumarka, welibana isagoo aan cidna ka codsanin. Marka uu nin la kulmo haweeneydii ku habboonayd, wuxuu la wadaagi doonaa noloshiisa oo dhan iyada. Waxna ma hor istaagi doonaan, mana khiyaami doono abidkiis. Waxa uuna jeclaan doonaa sidii ay tahay gabadhii ugu dambeysay ee adduunka ku noolayd. Sida inay tahay rajada keliya ee jiritaanka aadamaha si uu sii socdo. Sidaa darteed, gabadha ogaata khiyaanada ninka ay la jecalka tahay waa inay isla markiiba ka socdaashaa. Waayo waa inay ogaataa in iyadu aysan ahayn gabadha uu ninku raadinayo. Khiyaanadu ma aha oo keliya galmo. Waxaa jira khiyaamooyin aynu maalin kasta samayno inagoo aynan dareemin. Waxaa jira khaladaad aad u fudud laakiin aqoon daro ina haysato darteed aynu u faano inay tahay khiyaano. Lama soo helayo fikta liis noocyada khiyaanada ah, laakiin markaad dareento in wax la mid ah mindi si lama filaan ah u dhex gashay wadnahaaga, ogowna in uu qof uu ku khiyaamayo. Adduunka kama jirto khiyaano dhammaystiran. Khiyaanadu waxay leedahay cod ama dhawaaq qof kasta oo ugu dambeyntii maqlo, laakiin waxay u baahan tahay waqti yar si ay u gaadho dhagahaada. Haddii aan siyaasi ahaan lahaa, waxaan saari lahaa go'aan lagu soo qabanayo qof kasta oo lagu helo khiyaamo ama lagu caddeeyo. Waayo qofka awooda inuu khiyaameeyo jacaylkiisa waa qof awooda inuu khiyaamayo waddankiisa. Mar kasta waxaa jira gabadh maqan oo ka dambeysa burbur kasta oo nin la kulmo. Sidoo kale mar walba waxaa jira nin maqan oo ka dambeeya burbur kasta oo gabadhi la kulanto.
ma jiro qof xun oo iska maqan ama tegay bilaa sabab. Dabcan sida aanay u jirin qiiq iyo uuro meel aanu dab jirin, ma jiro qof xun. Ma jiro qof xun iyadoo aanay jirin macsalaamo jabisay doonistii qalbiga maalintaas. Kaale aan malaawaalno aniga 50 sano kadib markaan ku dhowaado 70 jir aniga oo fadhiya keligay gurigayga weyn, farahaygana soo fidinaya kuwaas oo u muuqda kuwa muddo dheer ku dhex jiray koob biyo ah, kuwaasoo aan ku sido buugga sawirada arooskaygu ku jiraan. Markii nolosha niyad jabka ahi ay ii guulisay gabadhaan adiga ahayn, albamkii sawiradayda ayaan soo jiidayaa, waxaan u furayaa si taxaddar leh sidii qof furaya miino qarax ah. Waxaan rogayaa sawirada bogga kale. Waxaan kugu xaqiijinayaa inaan kugu arki doono dhammaan sawirada. Waxaad noqon doontaa gabadh xiran dharka cad, misna ku fadhida jilbahayga ee lugba dul saaraysa lugta kale. Waxaad noqon doontaa gabadh ii cabtay sharaabka iyo gabadh si tartiib ah u jaraysa keega. Waxaan maqli doonaa codkaaga ka soo baxaya dhammaan sawirada, kaasoo si kalsooni iyo taxaddar ku jirta ii leh, anigu adiga ayaan ku leeyahay, adiguna adiga ayaad leedahay. Xiisuhu waxa uu igu qasbaa waqtigan inaan jeclaan lahaa inaan noqon lahaa quraanjo oo si dhuumaalaysi ah ugu soo gasha guriga habeenkii iyadoo aan cidina dareemin, si xirfadaysan ugu dhumata cadarka sida basaaska oo kale, oo si kalgacal ah oo indhadheeraynaysa wejigaaga daalan ee hurda, si tartiib ahna kor ugu fuulaysa dhinacyada iyada oo aan la dareemin, misna laabta ku gashata sida hooyo wiilkeedii oo lumay la kulantay muddo dheer kadib. Armaajada dharkaagana ka dhigto hoygeeda dhabta ah, iyadoo geesahana kugu tilmaamaysa quraanjooyin kale, si qab iyo kibir ku jiro ugu leedahay, tani waa gacalisadaydii. Kaliya marka ay dareento in cid kale ay ku guursanaysana ay nafteeda hoos u dhigto cagahaaga si ay u dhimato ka hor intaanay arkin qof kale oo ku guursanaya. Maalmo yar ka hor waxaan tiigsaday sanduuq alwaaxda ah ee aan ku kaysado alaabtaada. Waxaan hagaajiyey qufulkii sirta ahaa oo ereyga sirta ahi uu weli yahay shantaadii xaraf ee magacaaga. Waxaan ka soo qaatay gudaha sanduuqa warqad aad horay igu soo qortay gacantaada. Adiga ayaa ileh, adiguna aniga ayaa ku leh. Weligay waan ku jeclaan doonaa. Indhahayga ayaan xidhay oo waxaan bilaabay inaan xasuusto gariirka gacantaada markii aad ii dhiibaysay warqaddaasi. Markii ay xasuustii i xanuujisay, waxaan furay indhahayga oo madaxa ayaan u dhaqaajiyey sidii qof doonaya inuu ka fogeeyo xasuusta. Waxaan warqaddii ku celiyey halkeedii, welibana si taxaddar leh, sidii hooyo dhigaysa ilmaheeda oo hurdo xorkiisa. Waxaan xidhay sanduuqii alwaaxda ahaa. Si fiican ayaan ugu xidhay qufulkii, welibana si taxaddar leh. Ka hor inta aanan ku kicin kursiga aan ku fadhiyey, waxaan maqlay codkaaga oo ka soo baxaya gudaha sanduuqa. Wuxuuna ahaa mid diiran sida koob caano ah oo markaa la soo lisay. Waxaana igu lahaa, aniga ayaa adiga ku leh, adigana aniga leedahay, weligayna waan ku jeclaan doonaa. Waan fiicnahay. Waa been aan caadaystay inaan idhaahdo marka dadku ay weydiiyaan xaaladayda. Adiga kaliya ayay ii ahayd qofkii aan u sheegi jiray wax kasta oo qalbiga ku jira iyadoo aanan lahayn been iyo jirid. Kaalay aan kuu sheego inaanan fiicnayn. Haa, ma fiicni. Waayo maqnaanshiyahaagu wuu i burburinayaa, i xanuujinayaa, lafahaygana wuu ruugayaa. Ma fiicni. Aniguna adigaan kuu bukaa, waan ku doonayaa, waan kuu baahanahay. Ii sheeg jannadaydii maxay igu tuureen. Kaliya kuumaan xiisin, laakiin dhammaan waxyahayguba way ku xiiseen. Xalay waxaan ku arkay dhoolla caddayntaada xubno ku taallay buuggayga. Waxa ahayd mid qurux badan, sida daruurta ka dul sabanaysa samada magaalo ku taalla. Magaalo kulul xilli xagaaga ah.
Markii aan bunkii dhameeyey ayaan ninkii adeegaha ii ahaa ii keenay tiish si aan ugu tirtirto xumbada ku dhagan garhkayga, laakiin maanan samaynin. Sideen ugu tirtiraa waxaan ka dhex arkay carruurtii jidka maraysay waxay farahooda iskugu tilmaamayeen aniga iyaga oo qoslaya. Umay qoslayn muuqaalka shaarabahayga oo xumbadu ku taallo ahaa wax lagu qoslo, hase ahaatee waxay xumbadu ka dhex arkayeen quruxda dhool caddaynta sidaada oo kale, caddayntaada sidayda oo kale. Waxaa jira hal qof oo aan dhab ahaan u jeclaano, wax kasta oo ka dambeeya waa wax la iloobi karo. Mar kasta oo daadu nagu sii korodho, waxaan ka shalaynaa daqiiqad kasta oo aan ku heli karnay fursad aan kelmadda jacayl ugu sheegano kuwa maqan balse aynaan u sheegin. Kaale aanu malaawaalno ka waran haddii cimrigaagu gaaro 80 sano oo tareenka jiro ninkaaga anigana nibirigu cuno xaaskayga oo labadeenu noqono laba waayeel oo aan guursanin, kadibna go'aankaaga aad adigu u yeelatid oo aan kugu imaado aniga oo kuu soo bandhigaya guur, maiga aqbali lahayd inaan noqdo ninkaaga. Waxaan sawiranayaa adiga oo wejigaagu u leexinaya dhinac kale si aad iga qarisid casaanka wejigaaga, kadibna aad madaxaaga iga muujinayso inaad ogoshahay. Ka waran haddii nasiibku inoo qoro guur dambe, xaggee aynu ku qaadan lahayn bisha malabka? Magaalooyinka ayaad jeclaan lahayd inaad u safarto? Waxaan ku dhaartay inaan ku odhan doono erayo aanay dhagahaagu aadamuhu weligood maqlin. Waxaynu u safri doonaa meel ka fog dayaxa, waxaynu ku dabaalan doonaa biyaha webiga, waxaynu lugaheena ku fidin doonaa ciidda xeebta sida laba masas oo jacayl dartiis isku caajinaya. Waxaan ku socon doonaa waddooyinka habeenada guga ah, mid kasta waxa uu sitaa dallada roobka celisa. Waxaynu socon doonaa inaga oo gacmaha is haysana, maraynana jidadka ceeryaamadu buuxisay, kuna soconnaa tallaabooyin gaabis ah, inagoo qalbiyadeenu ka rajaynaynaa in safarku sii dheeraado ama inaannu marnaba gaarin meeshii aynu u soconnay. Waxaannu aad uga baqaynaa inaan jidka ka tallaabno si wada jir ah oo markaana dhinaca kala gaarno. Waxaan ku qabsadaa dhexda si aan kaaga caawiyo inaad ka gudubto laamida. Markaas ayaan sii dhex qaadnaa geedaha liinta marka aan aragno kuwa jacaylka isku haya oo dhunkashada iyo sirta isdhaafsanaya. Waxaan u dhol caddaynaynaa si xishood leh, kadibna safarka ayaan sii wadanaynaa. Marka uu roobku nagu da'o, ma furanno dalladaha, laakiin waxaan u sadaqaynaynaa kuwa saboolka ah. Waxaan u oggolaanaa dhibcaha roobku inayna dhaqaan. Waxaan u oggolaanaa dhibcaha roobku inayna dhaqdaan ilaa ay ka baabi'iyaan boodhka gabowga ee jirkayga. Markaas waxaan noqonnaa dhalinyaro sidii waqtiyadii hore. Markaan ahay 80 jir, ma awoodi doono inaan ku soo jiido sidii aad sida fudud u samayn jirtay markii aan dhalinyarada ahayn. Ma ku soo jiidan doonaa garhkayga ciroobay markaas iyo dhabarkayga hore u janjeersaday akhris iyo qoraal dartiis. Ma ku soo jiidan doonaa kala goysyadaydu kuwaasoo soo saara codad u eg sidii albaab aan la furi doonin muddo. Miyaadan ka cabsan doonin urta dhimashada ee ku dheggan jirkayga iyo bishimahayga qallalan ee dhadhanka kafeega iyo sigaarka leh, iyo afkayga oo markaas u muuqan doona sida isfanjo quruntay, iyo laalaabka hareeraha indhahayga ee godadka qotada dheeri ka samaysmeen? Ma ku soo jiidan doonaa jirkaygan dhammaaday iyo maqaarkaygan u eg maqaarka diin gaboobay? Miyay ku dhibi lahayd cabashadaydu iyo codka usha aan ku tiirsanahay iyo hoos codka ku dheggan codkayga iyo dhegtaan sida fiican wax uga maqlaynin iyo nabarada fudud ee wejigayga iyo xanaaqayga marka aan raadinayo ilka beenaadka aan iloobay ee aan meel dhigtay? Waxaan sawiranayaa adiga oo 80 jir ah oo aad u qurux badan oo waqtigu ka madax bannaan, sida adiga oo heshiis la galay waqtiga, waqtiguna kugu ag socdo isagoo aan ku taaban. Waxaan sawiranayaa adiga oo ah gabadh dhalinyaro ah oo 80 jir ah, weli ay ku jiraan raadadkii dhalinyarnimo, gabar 80 jir ah oo qurux badan leh,
indho bisad guri joogta ah, iyo sanka toosan sida xaqiiqda ah iyo jir loogu talagalay inuu noqdo saacad ciid ah. gabar 80 jir ah oo hore u soo guursatay kadibna ninkeedii uu tareen ku dhuftay oo ku dhintay, markaasna jacaylkeedii soo guursatay kadibna markii nibirigii wanaagsanaa uu cunay xaaskiisa si uu ogaado inay weli si lamid ah waagii hore u jeceshahay, si uu ogaado kadibna kala maqnaanshihii in qalbigeedu aanu qof kale hanan, si uu ogaado inay marnaba maalin aysan rajada lumin kana caajisin sugitaankiisa. jacaylku waa heshiiska aan ku sharaxno dhammaan waxa aan haysanno, innagoo si wanaagsan u og inuu yahay heshiis khasaare leh. xasuustu waa jaakad culus oo la xidho jilaalka, kaasoo aan xiranno innagoo aan rabin, innagoo cagaqaawani ku soconayna xilliga xagaaga ah, cadeeduna aad kulushahay. aad ayaan kugu xiisay xilligan, iyo codkaagii waa ka quruxda heesta calanka, iyo carafkaagii aan weligiis sababkayga gelin, iyo wejigaaga quruxda badan ee u eg sooyokooyinkii ay hooyadii sheegi jirtay waqtiyadii hore ee lasoo dhaafay. qalbi kasta waxaa ku jira gabar yar oo qalqaaliyada magaceedana la yidhaahdo xasuus, oo habeenkii soo kacdo waxay ku kicisaa fasahaad, waxay kala fidhisaa waraaqihii samirka oo ay waxyaalaha ku burburisaa si naxariista raac, waxay ku qortaa gidaarada qalbiga ballan kasta oo jacayl ah oo daa'ima oo aan isla gaarnay maalin maalmaha ka mid ah, kuwaasoo qadarku nagu khasbay inaan ka baxno. markii aan ku nidhaahno gabar yar ee qalqaaliyada seexo, inta ay noo soo jeedsato ayay cabbaar ina soo egtaa, kadibna carabkeeda inta ay soo saarto ayay nagu jeesjeestaa, markaas ayay dib ugu noqota iyada oo aan dan ka lahayn qorista balamaha jacaylka daa'imka ah ee ku yaala gidaarada qalbiga, kuwaasoo aan maalin wada galnay kadibna qadarku nagu khasbay inaan ka baxno. xilligii xasuusta uduggu wuxuu ku khatar badnaa dilaa la soo karaystay oo naga daba socda daaqadda daashad leh. saqbarka ayaan soo kacaa aniga oo cabsanaya, sababtoo ah codkaagu wuxuu ku soo qulqulaa albaabka hoostiisa, kadibna daaqadda, kadibna godadka xasuusta iyo barkinta hoosteeda. codkaas oo isoo kiciya misana igu yidhaa hurdada ka kac, waan kuu xiisay. sida aan kugu xiisay waxaan dareemay in genetigu xasuustu hido, sidahaygu xasuusto uu dhaxal ahaan ugu gudbo doono carruurtayda, oo ay ku kori doonaan iyaga oo xiisaynaya haweeney aanay garanaynin oo aanay weligood arkin noloshooda. maalin kasta oo aad maqan tahay alaabtaadu way igu qayliyaan, markaan galo qolkayga sida hooyo curadkeeda ku qaylinaysa, kadibna marka uu gurigu soo galay oo uu sheegay in walaashiisii yarayd ay waddada dhexdeeda kaga luntay oo uu soo waayey. adigu waxaad tahay sidii kalluun ilaa dhammaadka nolosheenna sii ahaan doona mid aan la hilmaami karin, oo xasuusaha ku dhex dabaalata, misna ah mid aan dhimanayn oon la xilaabi karin. xasuustu waa sidii shaydaamad aan la iska naari karin, waa lacnad sii joogta oo na wareerin doonta xitaa markaan qabriga ku jirno. maxaan marka aan muraayadda ishortaago si aan u feedho gadaashayda kugu arkaa adigoo sariirta fadhiya, adigoo dhoola caddaynaya misana ila dhacsan sidii inaad igu dhahayso alla qurux badnida ah. markaan isnaado eeg ee aan soo jeedsanana aan ku waayaa. maxaa marka aan seexdo aan u dareemaa inaad ku ciyaarayso garhkayga sida aad igu ciyaarayso dhogorta bisad guri joogta oo kale. markaan indhaha kala furana aan ku waayaa. maxaa kugu arkaa dhalada cadarkayga, saacaddayda gacanta iyo muraayadda hore ee gaariga. maxaan kugu arkaa waddada dhinaceeda adigoo oy gacan haadinaya si aan kugu istaago, markaan istaagana aad u cararta. waxaan bilaabay habeen walba dhammaan waraaqahayga inaan ku qoro magacaaga iyo ereyga waan ku jeclahay, mar kasta laga soo bilaabo daqiiqadaan ogaaday in ruuxaantaadu ay imaanayso si ay u basaasaan qoraaladeeda. kadib markaan seexdo waxaan ka dhigi doonaa dunida oo dhan
inay maqlaan magacaaga mar kasta oo dabayshu kacdo si dunida oo dhan ay u ogaato inaan ku jeclo oo weligay ku jeclaan doono iyo inaan waxba aysan joojin doonin jacaylka aan kuu qabo xitaa haddii aan noqdo boodhka keliya. Waxaa jira marar badan oo aan soo xasuusto markaanu ku wada hadalnay telefoonka oo aad i weydiisay ka waran haddii inta aan go'aan gaadho kaa tago. Waxaan ku idhi aniga oo isla han weyn, qofkii go'aansadaa inuu iga tago kama xumaado bixitaankiisa, laakiin hadda waxa aad ugu qoomeynayaa jawaabtaydaas. Haddii maalmahaas dib noogu soo noqon lahaa oo aad i weydiin lahayd mar kale ka waran haddii inta aan go'aan gaadho aan kaa tago, waxaan ku oran lahaa ma bannaana, maxaa yeelay waxaan ahay nin mu'min ah, islaamka gudihiisana kuma bannaano qof mu'min ah si kas ah loo dilo.